qaado dhalinyarada waxaan Soomaali waxay dhahdaa ninka 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda waxay u baahan tahay culummo xamaasadooda iyo maxaan ku waraahan waajihaadkooda agtooda saaciga bartay maanta waxa loo baahan yahay hawsha ay hayaan waxay u baahan yihiin culummo agtooda meeshii ku haboonan u dhigta oo u tilmaanta oo marjac u noqota ana waxay la tahay kaliya looga bixi karaa taas weey culummada maanta aniga waxaan u jeedaa dadka fuqahada ah ee diin islaamka aqoonta aan u leh majaalaadkeeda sida waxa lagu fahmay waa luqadda ilaahay u doortay oo carabiga ah qof marka waxaan rabaa qofka aan leenahay inuu yahay qof oo luqada carabiga hadday tahay naxwo iyo hadday tahay sarfi iyo hadday tahay mantiq iyo hadday tahay balaaqa iyo hadday tahay curuud aqoon u leh aaladda ilaahay u doortay in lagu fahmo waxyigiisa aqoon inuu leeyahay maxaan ku waraa tafsiirkiisa oo aqoon u leeyahay aayadii quraanka ilaahay soo dejiyay kitaabkiisa sunnadii nabiga oo aqoon u leeyahay nin faqiiha oo ah meesha mushkilada hadda haysataana ay tahay xarakaad islaamiya waxyaalaha kala qaybiyana ay tahay arrinta fiqiga oo meel la iska dhigo la yiri looma baahna macnaheedu waxay tahay in aan sheekh loo baahnayn kitaabka ilaahay halka uu yaalo sunnadii nabiga halka yaalo anigu baan akhristo waxay ahaayeen rijaal anagoo rijaalaan nahay mushkilada hadda dhalinyarada haysataa shalana haysatay maanta haysta inay taas tahay oo aan culimo loo baahnayn ama madaahibtii culimada salaf saalix oo qof kasta ay og yahay sagaalka madhabadood ahlu sunna la og yahay afarta hadda ugu xooga badan oo ka hirgashay imaam shaafici imaam abu xaniifa imaam axmed bin xambal imaam maliki yani madaahibta hirgashay macnaheedu waxay tahay istinbaad aayadda qur-aanka iyo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam in waaqa u waafaqo diinta waxaan waafaqi karaa qof caalim aha waafaqi kara mar hadduusan qofkii uusan heli karin in uu usuushii qof aan usuushi aqoonin luuqad iska wadhaa usuushi aan aqoonin hadduusan luuqad aqoon usuul ma baran karaba ani marka waxay la tahay usuushi diinta hadday tahay usuushi fiqiga ama caqaa'idkii ama tafsiirkii ama waxaan ku noosta ahaatee qofku usuushi uusan aqoon waxba ma fahamsiin karo maanta culimada saaxada Soomaaliya yaqaano culimo yaqaano diinta aqoon fiican oo way oo scholars ani marka waxaan qabaahay in dhalinyarada loo helo culimo agtooda meesha ku haboon tahay dhiga inta isla ayahana taas inay tahay in la raadiyana qabaataas okay musharraf soo sheegto musharrafa iska leeyahay bashira wali live noo ah وربنا وقنعيه قولك ديلي نيوز يا أصحابك كجرتا أفضل أفرط غفاد جسني سوقت كنا جلس عطاء مركو مشرف شاش حكت هذا إسكاله السلام عليكم شيخ مركو روا سلامي ولا له معمولك شيخ وهرت مركو وقول رئيس واد محطسنت هاي أنا بقول لي سيدان فكرك وقرتي inaad iswaafajisaan u maleynaya sida fikirka westernka iyo sida diintu qabto iyo sida aqliga wanaagsan uu qabo laakiin halka su'aal oo aan raba inaan ku weydiiyo ururada Soomaaliya wixii aad ka qabto ayaan rabay iyo sida aad u aragto anagu kolley wixii aan ka qabnana kolley dad badan baa meesha ku jira laga hadli maayo laakiin adigu baan rabay sida aad ka qabto anoo si kale fikirkaaga aan u dhaliilin laakiin aad iyo aad uga maqsuuday sidaad isu waafajisay waxa la isla fahmi waayay oo ah westernka fikirkooda diinta islaamka iyo dadka aqliga u saaxiibka ah oo doonaya wadankooda inay xoreystaan assalaamu calaykum ولا شيء خير الله فيه وكليته وسؤال أو عام ورحمة ذلك صومالي هذا كجراحي وحمد دا إلى هم من كده وين كهرمي ورحمة هذا حق هيستقوم باعتبار عن فكرة ورحمة الإسلام هذا كجراح وحوالي محنك ورا هذا شباب المجاهدين حزب الإسلامي لبدا ورر يعني كذا أنا كنت عقليا dadka hadda u taagan maxaan ku yiraahdaa isheeg inay difaacaan dalkoodii dadkooda laakiin hada side waxaan dhihi karaa cilada meesha taagan hadda marka la fiirsho oo waaqaca Soomaaliya la fiirsho waxaa la fiirshaa Soomaaliya marka la fiirina koonfur la fiirina maxaa ka jira laakiin gobolkii waqooyi iyo koonfur oo dowladda Soomaaliya ku heshiiyay asaga xataa hal ku jira qofka inuu soo fiirin oo uu yani oo idaarkiisa kaliya ku soo koobo inta koonfur ka jirtahay
laakiin cilada meesha taagana waxay tahay maanta marka la yidhaahdo riyaale iyo marka la yidhaahdo faroole laga hadlo inay kamid yihiin dalka iyo dadka kala gooyay oo kastaahi meel la istaagay marka waxaan qabaa marka la fiirinayo mandaarka taas waxaan usoo qaada la fiirinayo muwaajahada in soomaaliya mandaar caama lagu fiirsho aan mid khaasa aan lagu fiirin marka waxaan qabaa marka la yidhaha maanta isla islaam ama shabaab ama qolada dawladda sheeganaysa ama waxaan ku waraadaa xisbigaan amxaaro hadda ahlu sunna sheegata intaas markii la fiirsho oo qofku uu saas ugu fiirinayo in laga reebo farana laga reebo la yidhaha puntland maba saaxadaba kuma jirto ama somaliland saaxada maba ku jirto oo riyaala marka waxaan qabaa maxaan ku warahdaa ninka le riyaale iyo faroole iyo shariif iyo maxaan ku waraa ahlu sunna waxaan qabaa hal jaanib inay kasoo jeedaan oo international ay raacsan yihiin internationalkaasna wax hogaamiye maraykan uu yahay maraykan wakiil uu leeyahay etoobiya la yidhaahdo iyo uganda iyo kenya in waxaa lagu jira in dad saas ku xiran oo hadba kenya looga waco ama maxaan ku waraa addis looga waco aniga marka waxaan qabaa madaarka marka aan fiirinayno oo gabadha walaashii su-aasheeda ah madaarka markaan fiirina si guud inaan ufiirino dalka soomaaliya hal dal buu ahaa laakiin 5 qaybood baa loo qaybiyey mujmalkaa guud in la fuusho maanta soomaaliya xuduud ay kala leedahay dhexdeeda ma jirto dadka aamisanna kuma jira anagu inaa xuduud etoobiya ilaa hadda la leenahay dad kaleo soomaali baa xuduud la leenahay oo soomaalidii lakala qaybsho ah kenya sidoo kale xuduud lama lihin oo xuduud lihin weli dalkii soomaaliya oo kala qaybsana xuduud la leenahay marka hadda soomaalida ictibaarka labadii gobol oo midowday laga sheekeynayo ani marka waxaan qabaa shantii soomaaliya mandaarka anaku maanta aan ku taagana oo ah in xorriyo ay helaan waxaa waaye shantii soomaaliya oo la kala qaybshay oo ilaa hadda la rabo in lasii kala qaybsho waxaan qabaa midaarka ugu hooseeya oo anaka ku taaganahay inuu ka yahay laakiin midaarka ka sarreeya oo ah in muslimiintii oo dhan maanta ay yihiin la kala qaybsho halkii dawlad 62 dawladood la warramayo habeenkii dhaweedaan ka warramay taas muqaaninaayo laakiin waxaan qabaa caqiidadeena iyo islaamkeena marnaba inaysan ka turjumayn ama aana ogolayn ama aanaba caqiidisnayn in dal muslim ah oo mid ahaa maxaan ku raa la kala jarjaro islaamkeenana ka mid aha aniguna ma aaminsanin laakiin duruufaha ka sokeeya oo dadka oo maanta western dawladda ay ka dhigeen nin amiilaha madaxweyne u ah uu sameynayo kaan waardiyey marka waxaan qabaahay shantii qaybood oo soomaaliya inay soomaalinimadooda iyo raaditaankeeda waxaan qabnaa inay labadii gobol oo soomaaliya ku heshiisay midnimadooda iyo jiritaankoodii la keeno marka waxaan qabaa duruufo noocaas u saaran qaabkaas waaye qaabka laakiin in islaamku mid yahay muslimiintuna mid yihiin caqiidadeena islaamkeena waaye waana ka baxay